ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قول يستا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلى كرن كيال كعو كرا كعو كرا كعو كرا وان قلبي قاسي النقضي وان مش قامي وين دلها وهو يدي كان وابهي وين دلها هوي أنا وان دلها ما هاد سنة هوي أمبلي هوي وان دعي bulsho danyar ah ayay dawladdu ku wareejisay furayaasha guryo ay si casriya ugu dhistay kadib markii la dumiyay guryo duug ah oo ay horay u deganayeen waxaa xariga laga jaray 31 guri oo dhawaan ay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo golaha wakiilada shacabka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo iskaashanaya ay u dhiseen bulshada danyarta ah ee ku nool xaafadaha labaad saddexaad iyo shanaad ee magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida guryahani oo ay ku baxday lacag ka badan 30 milyan oo bir ayaa la bilaabay xilligii uu socday barnaamijka tabarucaadka xilliga xagaaga ee dayactirka guryaha danyarta ay hayntoodu hooseyso bishii July ee sanadka 2022 tirsiga caalamka ayay yahayd markii uu madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyo afayeenka golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Tadase Chafu ay daahfureen barnaamijka tabarucaadka xilliga xagaaga oo 31 gani qoys guryahooda loogu dayactirayay maanta ayuuna madaxweynuhu goobjoog u ahaa soo afmarida barnaamijka kadib markii la dhameystiray qorshaha iyo galeelida guryaha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan oo bilowgeedii dhammaan intaanada aan ugu wada joognay oo aad ogtihiin guryaha markii la duminayay maalmihii la duminayay nooc ay ahaayeen iyo maanta nooc ay yihiin runtii guryaha la duminayna qalbiyad dunsanaa ayay soo toosiyeen oo inoo leeyihiin wejiga dadka laga garanaya marka barnaamijka fara badan oo isbeddelkii kadib dalka laga bilaabay ayuu mid ka yahay رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد وحلا فرق بدن وكسو كردي بدل كده بدل كاتشرة حاجة أمنية حاجة ساينسكا حاجة وحصوصاركا حاجة سياسة وحفرق بدن بدل حاجة شرعية ولا سمية باتشرة لكن برنامج كوجود من يمثل أصلاً هاي الشعب كقلب وكحر يا دولته وبرنامج كان رد كمساكين تعين هوس انت لو دادجو وحلا قبته مركب برنامج فرق بدن ومساكين وحلا قبل ياتشرة سكولات هدي لا تيسو عافمات هدي لا سميو ودوين هدي لا سميو waxaan oo dhani waxay dadka masaakiintiina way ka faa'iideysanayaan dadka kale wala mid yihiin laakiin si gaar ah in guriyeynta oo kale halkii yani hadda ka hor ama guriyo uu la dhisay oo dawladda loo sii jiray in iyaga u leeyihiin dadku hanti u leeyihiin mulku u leeyihiin in maaragtay loo dhiso runtii arrin soo kordhay wanaagsan weeyaan waana in la sii ballaariyaa barnaamijkan miisaaniyadda ku baxday boqolkiiba 30 waxa ku daray xukuumadda deegaanka Soomaalida inta kalena aqalka baarlamaanka ee federaalka iyo hay'ado heer federaal ayaa bixiyay boqolka waxa loogu daray 30 kaas boqolkiiba sidoo lacagta lagu daray oo 10 milyan gaaraysi waxa loogu daray in standardka guryaha la dhisay ay noqdaan kuwo wanaagsan oo nolosha dadkan tabaalaysan ee aagan ku nool wax ka bedesha bilicda magaalada wax ka bedesha marka halkii intii la hay'ad dhaqaalaha hadii guryaha 30 la gelin lahaa waxa laga yaabaa bilicda maanta ay leeyihiin inay yeesheen xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in iyaga oo kaashanaya ganacsatada deegaanka ay 50 guri oo kale u dhisi doonaan danyarta magaalada Jigjiga si mashruucan oo faa'iido badan u leh danyarta loo ballaariyo xukuumadana anagu waan rabnaa in 50 guri oo kale oo dawladda iyo ganacsatada iyo kuba joogta aan ka kaashanay inaan dadka danyarta aagan ku nool aan ugu sii darno 50 guri oo kale ayaan xukuumadaan ku daraynaa taasoo islaana wax weyn ka bedelaysa nolosha dadka guryaha hadda la dhisay waxay dadku noo sheegeen qaarkood qaar 2 qol baa loo dhisay qaar 3 qol baa loo dhisay inay dhaxantii iyo daadkii iyo faadkii haysan ka galayaan
qaybna hadday rabaan ay kiraysanayaan nolol ka soo saaranayaan maadaama guryo qurux badan wanaagsan yihiin insha allah haddii alla yidhaa guryaha kale markay dhammaadaan ay sidoo kale u joogi doonaa barnaamijkaas dumintii iyo dhisidaba labadaba iyo dhammaystirkaba waynu u joogi doonaa si uuna magaalada caasimadda ugu ekaana barnaamijkan in laga dhigo barnaamij sii socdo oo dawladdu ay wadato iyo shacabku iska kaashadaan oo ilaa iyo gobollada iyo degmooyinka loo dhaadhiciyo dadka danyarta ah ee masaakiinta meel walba wixii loo qaban karo tabarta dawladda in la muujiyo baahidu inta ma ka badan tahay kumanaan guri haddii la dhiso baahida taalle ee masaakiinta waxba kama qaban karto laakiin in dadaalkaas la muujiyo dhaqanna ay noo noqoto waxa ugu muhiimsan waa inay dhaqan noo noqoto qof qasri dhistay oo agtiisa dad buul ku jira ay jiraan baa jira guryaha waxaa lagu dhistay guryaha 600 kun baa lagu dhistay gurigiiba ruuxdaa leh marka qofkaasi dabcan wuu iska bixin karaa 10 kun iyo 20 kun iyo qofkaasi oo ishan isaga ka duuday isaga ubadkiisa ka soo toosaya guryaha dhalaalaya waaweyn kuwa agtiisa guryaha buulka ku jira ee ubadka ku haystana wax u qabanaya diinteena ayna faraysa dibiirkeena ayna faraya anagoo culimada diinka iyo dhalinyartan ka shaqeysa barnaamijkan afuri walaal يعني نحريستو بشهر رمضان تونين نقطة ما بلا كنا وين نسمع نحريستو قف كسيد عنتو بهاي بشهر رمضان الله فرنايو أيو هوين بهاي مثلا هنا برنامج هذا بلارين العقد بدن شعب كانوا إنجليان إنه واحد نجا مغناوي هاي عن سمعينه أو عن دتك كبر على أو عن رشيد كنا سوق عندنا شاء والجد ذلك دونا ودنا سنتين آدي الله حنقول نقيا ولا برلمان كفدرال كا iyo hay'adii ka qayb qaatay arrintan ee soo kolka hore fikirkana lahaa dhaqaalahana geliyay iyo dhalinyartii xeer deegaan ee habeenii maalin u soo jeeday ee design-ka u sameeyay ee talab bixinta ku lahaa mar walba lahaa wax nooca ayaan sameeyno waxaas nagu daray u baahan tahay shaqadiina qabtay aad iyo aad ayaan maartay u mahadnaqaya dadka maanta guryaha loo dhisay inay guryaha dar yeeshaan inay ilaashadaan inay ka war hayaan ayaa loo baahan yahay munaasabadda furayaasha loogu wareejinayay danyarta guryahani loo dhisay waxaa sidoo kale ka hadlay afayeenka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ዛሬ ከጥቂት ወራት በፊት የቤቶችን ሁኔታ አይተን የነዋሪዎችን ሁኔታ አይተን ጅጅጋ ከተማ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና ተጠሪ ተቋማት በጋራ በመሆን በብልጽግና ዘመን ሰባዊነት ሰው ተኮር የሆነ maanta dhowr bilood ka hor markii aan aragnay xaaladda guryaha xaaladda muwaadiniinta magaalada Jigjiga golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya iyo xubnihii kale ee bahwadaagta ku ahaa waxa aan ku dadaalay sidii aan u bedeli lahayn nolosha dadka annagoo u eegayna xaaladda bini'aadanimo iyada oo aan la eegin mas'uuliyiinta deegaanka annagoo ah golaha wakiilada shacabka ayaa dareemayna farxad weyn waxaana si weyn maanta ugu faraxsannahay in aan farxadiina idinla wadaago dhammaanteen haddii ay tahay bariga waqooyiga koonfurta iyo galbeedka waxaan nahay dad ku sugan xaalado kala duwan waxaan wada qaybsanaa farxadda murugta iyo barwaaqada sidaas daraadeed maanta waxa aan soo gaadhnay xaaladan wada jirka ah waxaana mahadnaq weyn u jeedinaya shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida doorka muhiimka ah ee ay ku lahaayeen waxaana sii wadaynaa horumarkeena iyo xoojinta nabadda aan haysano waxaana si wada jir ah isku weydiinaynaa caqabadaha inala soo darsa iyo sidii aan ku xallin lahayn waxaan sii wadaynaa geediga horumarka bilowga ah ee aan wadno oo aan ku guuleysanayno himiladeena horumarineed ee aan ku gaadhayno isbedel waara dawladda sharafta waan salaamayna kor allaha ka dhigo inamadeeda loo dhisay 3 qol baa loo dhisay markii hore jiingaday rabban deganin oo gaaban دايما كان الحمد لله رب العالمين إلهي وما هدلي وانو دعينا استعقل بينه وقدقان الله كرة كدقو إنما هذا الله ديسي أو باهن الله كرة كدقو ماشو وفي عندي هذه يد ونقو شوعي دي إله حمد قويا انت إلهي كسو كيسان المصطفية حكومة طبعا وانو ما هدلقيا يا دحان دا سن لحسي عنجرين دحان دا سن لحسي عنجرين ميل روب كاتوتو أيو حتى عدد جتو سامان ولح فديه جرا بيني مالين te maanta waxa gurigiibu noo dhisay raashinkiibu nasiyo uu noo sharaxay te alxamdulillah ilaahay isagana qayrkiisa ka sarreeyay waxaan ku hadlayaa magaca dadkii guryaha loo dhisay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay
waxaan u mahadnaqayaa ilaahay waxaan u mahadnaqayaa dawladda dhexe gacanta ka geysatay iyo madaxweyne mustafa waxa kale oo u mahadnaqayaa qabaleega ka tirsan Neeserowlati oo isna garab taagna aad iyo aad baan idin salaamayaa farxadayda waxaan ku qiyaasan ma garanayo waxa weeyaan ma jirto cid dawladoo la soo martay oo inta ay dawladdaasi qabatay ma jirto waxa weeyaan aad bay xukuumaddani dadka danyarta ugu fiirsanaysaa waxaan markaa mid kale odhanayaa dadka guryaha la siiyey guryaha idinkaa leh waa antadiinii ilaashada maalintu madaxweynuhu aqalkayga dumiyey iyo maanta way aad iyo aad bay u kala sharaf badan tahay maalintu madaxweynuhu aqalkayga duminayay saasuu u dhaqayay maantana aqal wanaagsan oo fiican baan ku jiraa dawladda madaxweynaha mudanayaasha madaxooda jiro boqorkii jiray ee jooga allaha ka dhigo adowgiisa allaha jabiyo caafimaadka allaha siiyo aniga maanta farxaddaydu aad iyo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay lama soo koobi karo maalintii aqalkaygu wuu dhacayay maantana aqal maraadaa la ii dhisay mustafa mar baan ku mahadiyaa dawladda dhaxaan ku mahadiyaa federaalkan kuma ilaaha waaxidka ee weyn baan ku mahadiyaa